xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga xaakimka kulmiye oo wiilinayaan taageerayaal ka tirsan xisbigaasi ayaa ku qaabilay gegida diyaaraduhu ka aadaana Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Khaliif Maxamed Warsame Xinwaal oo ka mid ah saraakiisha xisbigaasi kana soo boqolay magaalada London ee cariga dalkaasi Britain. Soo dhaweynta diiran ee lagu sameeyay gegida kadib waxaa loo soo galbiyay qolka nasashada VIP ee madaarka Cigaal. Waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga xaakimka kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed iyo sarkaal kale oo ka tirsan isla xisbigaasi. Ayaguna dhammaantood goobtaasi ka jeediyay ereyo soo dhaweyna inaanu ugu soo dhaweyno iyadoo ay marayaan hoggaankii sare ee xisbiga xubno ka mid ah sida Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed iyo odayaal kale oo fara badan ku soo dhawow Khaliif dalkaaga hooyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaado maanta. waxa aad iyo aad farxadii ah anigii xubnaha xisbiga halkan aan wada soconay dhallinyaradii waayeelkaba leh inaan maanta halkan garoonka caasimadda Cigaal International Airport aan ku soo dhaweyno siyaasi aqoon-yahana madaxda xisbiga kulmiyana ka mid ah dalka Ingiriiskana degan Khaliif Maxamed Warsame Khaliif Xinwaal oo dadka mudakarka ah ee xisbiga kulmiye ka tirsan ah horena halgankiisa uga soo qayb galay halganadii hore ee dalka iyo nidaamkiisina maxaan ku dhahdaa ka soo qayb galay hanifan kugu soo dhaweynaynaa waxaan ku dhahdaa dalka. sidoo kale waxay isaguna goobtaasi ka hadlay siyaasi Khaliif Maxamed Warsame Khaliif Xinwaal isaguna uga mahadceliyay hoggaanka sare ee xisbiga xaakimka kulmiye iyo sidoo kale taageerayaasha tirada badan ee ku qaabilay gegida diyaaradaha Cigaal. anoo si nabad qabo u yimi dalkaygii hooyo caasimadda Hargeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha isu soo xilqaamay inay soo dhaweeyaan iyadoo ah bil Ramadaan iyadoo xilliga aynu joognaa aynu ognahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa asxaabtayda dhalinyarada ilaa iyo markii aan ka soo dhoofayay Heathrow Airport ilaa imika ila soo hadlayay hadba xaaladeedii halkan maraayo iga wareysanayay sidii magaalada igu soo dhaweeyaan raggaas waan aad iyo aad ugu mahadnaqayo dhalinyarada imika waa xilli dambe. intaasi kadibna waxaa hoggaankii sare ee xisbiga xaakimka kulmiye iyo taageerayaashii wehelinayay ay siyaasiga ka soo galbiyeen gegida diyaaradaha ilaa intii laga soo gaadhayay faras magaalada Hargeysa. oo Faysal Maxamed aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa.